dowlad goboleedka galmudug agaasimayaasha caasimadda haweenkeena qiimaha badan ee caawa quruxdu ay ka muuqato dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed caawa sharaf ayay tahay inaan idinkala soo qayb galo munaasabad qiimaheedu sarreeyo oo aan ku dhisanayno kuna taageerayno dekadii hobyo oo runaantii ah lifeline-ka ama meesha ugu habboon ee aan ku dhisan karno dalkeena runaantii caawa sharaf ayay tahay inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan qiimaha leh ee aan ku taageerayno dhismaha dekada hobyo oo runaantii ah isha kaliya ee dakhliga ee galmudug uu ka soo geli karo runaantii wax badan baad maqasheen dekada hobyo la dhisayaa shirkad hebel baa dhisaysa iyo wadan hebel baa dhisaya maanta waa ka duwan tahay qaabkii hore aan u wajihi jirnay maadaama in badan oo ka mid ah nidaamyadii hore ay shaqayn waayeen waxaan hadda go'aansanay inaan ku dhisno qaab la yiraahdo triple B waa public private partnership macnaheeduna yahay in dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay shirko ku noqdaan dekadaas oo ay wada dhistaan galmudug waxay leedahay ganacsato qiimo badan oo guud ahaan Soomaaliya laga yaqaan xaqiiqdii iyo shirkado waaweyn dawladda galmudug iyo shirkadahaas ayaa iska kaashan doona dhismaha dekada hobyo ilaahayna waa nagu guuleyn doonaa insha Allah isku tashigaan sameynay wadan horumarkiisu waa midnimo wadanku midnimo hadduu helo waa horumaraya runaantii maalintii galmudug naloo dhiibay aniga iyo madaxweynahayga Axmed Qorqor gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale waxaan muujinay midnimo waxaan muujinay isla shaqeyn waxaan muujinay inaan har iyo habeen u shaqeyno sidii galmudug aan wadadii cadeyd cagta ugu saari lahayn isku xirnaantaas iyo isku wada shaqeyntaas ayaa waxay noo saashay in maanta galmudug ay ka bedelan tahay galmudugtii aan qabanay runaantii wax badan ay muuqdaan maanta waxa ugu yar ee muuqda waa inaan dekadii hobyo aan daafurnay muddo kooban oo bilo lagu qiyaasay dhamaadka sanadkana aanu bilaabi doono dhismaheeda ilaahay hadduu yiraahdo caawa waxaan shacabka galmudug halkaan uga hambaliyeynayaa in ganacsatada ka soo jeeda waqooyiga gobolka galguduud ay ku yabooheen inay $20 milyan uga qayb qaadanayaan dhismaha dekada hobyo waxaan intaa ku darayaa banooniga hadda wuxuu jiraa dhanka ceelbur iyo ceelleer ilaahay hadduu yiraahdo intaasi markaan uga soo gudbo dekada hobyo iyo dhismaheeda qiimaha ay leedahay dekada hobyo iyo qaabka mataqaan aan u wajahayno waxaan ku qiyaasayaa qaabka uu madaxweyne Qorqor u tilmaamay oo ahayd in dekadani ay u adeegi doonto guud ahaan galmudug iyo gobolka oo dhan qiimaha ay dekadan leedahay waxa kamid ah dekadan marka ay furanto in dalka Itoobiya oo 108 milyan lagu qiyaaso ay isticmaali doonaan dekadan sidoo kale waxa isticmaali doona galmudug oo dhan Hirshabeelle iyo qaybo kamid ah Jubbaland iyo Koonfur Galbeed markaan leeyahay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed markaan leeyahay kiishka bariiska ee ka soo dega dekada Boosaaso wuxuu tagaa degmada Balad Xaawo iyo degmada Xudur oo labadooduba ka tirsan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed asagoo sii mara Beledweyne halkaana Bakool ka gala 1 kiiloomitir baan uga dhownahay inaan mataqaanaa gaarsiino kiishka hobyo ka soo dega inuu Balad Xaawo tago degmada Xudurna tago sidaa daraadeed waxaan u adeegi karnaa 4 maamul goboleed baan u adeegi karnaa dekadani waxay u adeegi kartaa 4 maamul goboleed oo Soomaaliya ka tirsan iyo waliba dalka Itoobiya muhiimadda ay leedahay dekada hobyo wataas shacabka galmudug waxa laga rabaa degmooyinka
iyo gobolladaba inay isku tashtaan laga qayb qaato ninka gaari keeni kara ninka xoolihiisa keeni kara kambaniga share ku darsan kara dekada galmudug inaanu u dhaqaaqno dhismaha galmudug dekada galmudug ee hobyo waxaan u mahadcelinayaa ugu dambeyn maamulka caasimadda oo run ahaantii muujiyey karti iyo hufnaan muujiyey dhismaha maanta quruxda badan ee haweenkan sharafta badan ee degmooyinka ka socda iyo agaasimayaasha dhalinyarada ah run ahaantii waa idinku ammaanayaa dadaalkiina iyo sida aad usoo qaban qaabiseen munaasabadan waqti dheer ayaan meeshan joognay waa noo soo xirayaa kulankeenna waxaan noo ballanaa inaan galmudug ka shaqeyno horumarkeeda iyo wadajirkeeda waa mahadsantiin